Assalaamu calaykum mudanayaal marwooyin kusoo dhawaada waxaa nagala socotaan channelka wadani show. Waxaan maanta ka hadli doonaa shanta wadan ee qaaradda Afrika ugu dhaqaalaha badan. Wadanka koowaad waa dalka Nigeria. Dalka Nigeria dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 195,874,740 qof. Dhaqaalaha wadankaas kaydka u ah ee bangiyada u yaala raasmaalka ah waxaa lagu qiyaasaa 446,543 milyan. Dhaqaalaha wadankaas waxa uu ku tiirsan yahay shidaalka, warshadaha, beeraha, adeega bulshada. Dalka Nigeria waa wadanka 27aad ee xagga dhaqaalaha adduunka ugu horeeya. Sidoo kale dadka wadankaas waa dad aad u shaqeeya isla markaasna aan daalin. Wadanka labaad waa South Africa. Wadanka South Africa dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 58,775,022 qof. Dhaqaalaha wadankaas kaydka u ah bangiyada u yaala waxaa lagu qiyaasaa 358,839,000. iga raali ahada halkaas waxaan ka wadaa 358,839,000. Wadankan dhaqaalihiisa sanadkii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay 2019 waxa uu sameeyay hoos u dhac dhaqaale. Sidaas waxa uu ku noqonayaa wadanka labaad ee qaaradda Afrika ugu dhaqaalaha badan. Dhaqaalaha wadankaasi waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha, warshadaha, adeega bulshada. Wadanka saddexaad waa Egypt ama Masar. Dalka Masar dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 100 milyan. Dhaqaalaha wadankaas waxaa lagu qiyaasaa ee kaydka u ah bangiyada u yaala raasmaalka ah waa 302,256,000,000. Dhaqaalaha wadankaas waxa uu ku tiirsan yahay kanaalka Suez oo kaalinta koowaad kaga jira. Lambar 2 waa beeraha. Lambar 3 waa adeega bulshada. Warshadana waa uu leeyahay wadankaasi. Dhinaca kale marka laga fiiriyo Masar waa wadanka xagga ciidanka iyo xuduudda military qaaradda Afrika ugu horeeya. Wadan la dhageysan karana maaha. Inkastoo sanadadan dambeeto muddooyin xoogaa laga roon yahay. Wadanka saddexaad waxa weeye dalka Algeria. Afraad waa dalka Algeria. Wadanka dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 42,972,878 qof. Dhaqaalaha wadankaas waxaa lagu qiyaasaa kaydka u ah ee bangiyada u yaala waxaa lagu qiyaasaa 172,781,milyan. Dhaqaalaha wadankaasi waxa uu ku tiirsan yahay shidaalka iyo warshadaha, beeraha iyo adeega bulshada. Wadanka shanaad oo ugu dambeeya waxa weeye waa wadanka Morocco. Wadanka Morocco dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 36,229,138 qof. Dhaqaalaha wadankaas ee kaydka u ah bangiyada u yaala waxaa lagu qiyaasaa 109,040,000,000. Dhaqaalaha wadankaasi waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, warshadaha iyo adeega bulshada. Waa wadanka shanaad ee qaaradda Afrika ugu dhaqaalaha badan ayuu sidaas ku noqonayaa. Walaalayaal haddii aan ugu cusub tihiin fadlan na dhiirigeliya, na soo dhaweeya, subscribe-ta iyo share-ta iyo comment-iga iyo like-ta intuba waxa inoo noqonayaan in dhiirigelin kamana daali doono. Waxyaabo badan oo idin dhiirigeliyana waan soo gelin doonaa. Kanaalkuna waa kanaalkiini. Soo dhawaada wixii afkaar qabtaanin comment-iga noogu reeba.
wixii aa xiiseynaysaan markaas inaanu kasoo hadalno. aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad.